xilliga qaadista ama dhageysiga dacwadda garsooruhu wuxuu dhageysanayaa eedda xeer ilaalintu ay soo oogtay ilaa baarista saldhigga booliiska markhaatiyada waxaanu raacayaa sida uu sharcigu ku waajibiyey xilliga dhageysiga iyo qaadista dacwadda sidoo kale wuxuu dhageysanayaa istifaaca eedeysanaha iyo dooda qareenkiisa ilaa uu ka gaarayo qaraarka kama dambaysta ah ee ku dhawaaqista xukunka waxaa loogu yiri macnawiya dibaa ku damaaciyey marxuumka ku damaaciyey wuxuu ku damaaciyey inuu xiriir la yeesho saaxiibada bilgalmo balaamu isagoo la jooga ayuu xaaskiisii u soo diray telefoon yiri aan kugu imaado haddii la rabo yahay bacalada barkada hada xaaja barkada xaalad magaalada mid ka mid ah oo u dhiibtay isaga oo yiri waxa uu soo xaaskiga dabcadiina telefoon yaa leeyahay inaan barkada kula ballamay halkaas ugu nimaado لو حيوان نوعاس iyo wax la mid oo waxyaabo baahan maxkamadu inay taabato oo erga ka galay oo qurxasha maxkamad loo dhan ogaatay ama ka warayso lama tixgelin lama eedeyn waa duruuf u baahan in hadii la buriyo jiritaankeeda markay maxkamadu taabato inay tixgeliso waxa inta raacada kafaalu difaaciisi waa dhaartay ومحكمة الأسرة إلى أن كابل إنه مركي قالوا يستاجي ديك كروح وقاعد حي تنعى حاس كيسة ونور وحليل لي شيء كذبنا وإرجع كجاري إرجع دي شباب شو سوري تبدل سورة بطول أرجع صار نقلي وهني تبدلنا والله كل ما قاري أسمع صار وقت بريك مركو أجن أركي قالي وكذي بروح برا وصار حاجة كده حي intaanu kaaga horay uga horay aragtiisu wuxuu sheegay inaanu doonaynin inuu wadlo laakiinse uu doonayay in haddii la baru yahay wax yeeli gaarsiiyo marxuumkaa dhintay ma doonaynin wuxuu doonayay inuu wax yeeli gaarsiiyo nasiib daro laawac uu noqday wuxuuna ku dhintay markii la qaaday boqoshii meesha كنت أنا كسر ريال إني بانجي موسين بعد العصر سوى علي يسأل وجوه غير ولا كل بيشاف رات بهاي أباركوا سوق يبركي بركي منه لا كنا أبركوا أباركوا يسوق يبركي بركي منه ربعان تكتري تولد مدقنة أو لا تعمل خبر روحوا تجي ودلوين بابو خاين مصر وجا بابو بيشيل شات صوت بيجي في عضاي وطاقم كل بيشيل قاطر هكذا بابو بيشيل توصل بريقنا كم قوان يساعد بوري قطع حبيت نسي توصل على والله شيء والله بيحصل كل شيء كل شيء ما سكتوا قادرين واحد طبعا تلاوي كتب قيامها ينقول مثل عليم يقول لك لا قادر تقول قبل شيء لقيه وحدا هو جري ولا شغلنا لا قيمة ما واحد يعمل قاعد بالدنيا فولاي إنه واحد برا أو عندنا أو كنت رجلا أو هبني من كنت توصل وصحني من فوق يفوقاته ووضع له هو كراي وكل شيء ما بصامر بعمل سوى جالس وأنا شو مقاتيل قوات دعوة الناس كافرين دوران وها مثل ما بدنا نسأل أو أي مثل صح قوم شو وها ده مرحوم ما كان سعيد وليه فقالوا شو درجة سدير هذا دعوة كتير نجيب تيجي مرحوم التليفون فوق دري أبغى أستدي اسمعني ما وقولوا أنا قاعد أقول قصة صعبة أنا بقول كريه سكتش أنا ما أقول قصة شيء صعب هذا ما أعرف سأسمع قصة مرة كسرنا فرد بيش ما بيجي لنا فكسرنا حيوان كردنا قرص كسرنا معه
hadduu yar ku dhufan lahaa xooda ama dhagax ku tuuro ama dhibaxo ama feer ku dhufan lahaa oo daliil naftu ka dhici lahayd baa la xisbaatay oo wixii qasigi u jeedo wax ka badan la yimid laakiin markuu leeyahay waxaan doonayaa in dhaawaco hadduu dhaawaco dhinto natiijadii noqon u dilo marka uu doonayay sidaa daraaddeed guddoomiye ma laha muran shaki maxkamada sharaabta waxaan ku codsanaa iyadoo in ku raacdo oo lagu qisaaso dembigu galay oo dib u maxkamada macna ay fadhiyeen ku xusan fadhiyeen dib bareer ay ku xusan qodobka 434 xeed ciqaabta guud oo waafaqsan aayadaha quraanka kariimka ah suurada baqara 178 179 fafaaluhuna uu yahay qofkii galay dambigaas kadib markii uu si bareer ah xabad kaga dhuftay marxuumka kelida bidix hoosteeda taasoo goysay xididada waaweyn ee kelida marxuumka goobta ku geeriyooday sababta falkaas taariikhdu markay ahayd 1 bishii afraad 2014 isla goobtaana ku geeriyooday sababtii xabadda kaga dhacday kelida una dhintay dhiigbax dibadda iyo gudahaba ah taas oo keentay dhimashada marxuumka sida ku cad xaashida midbaarista ismadeedu tahay rif isbitaalka guud ee gobolka Togdheer 177 2014 ee 2 bishii afraad 2014 kana soo baxday isbitaalka guud ee Burco sida ay wax u dhaceen ay waafaqsan yihiin qodobka 163 xafiisa A iyo B xeerka habka ciqaabta sidaa darteed maxkamadda sare iyadoo cuskanaysa qodobada 232 233 234 122 123 160 xeerka habka ciqaabta iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta guud oo waafaqsan aayadaha quraanka kariimka ah ee suuratu baqara 178 179 waxay soo saartay xukunkan waxaa la diiday asbaabta rafcaanka rafcaan leh